wafdi ballaaran uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda xanaanada iyo kalluumaysiga Somaliland mudane Xasan Maxamed Gaafandi oo ay wehelinayaan maamulka dawladda hoose ee degmadaasi Togwajaale ayaa maanta si wada jir ah u soo kormeeray kaawaanka xoolaha lagu qolay ee degmadaasi Togwajaale iyo sayladda xoolaha ee degmadaasi Wajaale waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Togwajaale mudane Cabdilaahi Xasan Samaale maayir ku xigeenka degmadaasi Wajaale mudane Mursal Nuux Ismaan iyo xildhibaanida Xasan oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi Gabiley baahiyaha waqti xaadirkan ka jira kaawaanka xoolaha lagu qalo oo dhifra badan ku haya shacabka uu kaawaankaasi ku ag yaalo mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii maanta waxa halkan lagu soo booqday wafdi sare oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Xasan Gaafadhi way ku weheliyaan agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waxyihu marka hore waxaan ugu soo dhaweynaa gacmo furan dekadii qalleed ee magaalada Wajaale ayaan wasiir ugu soo dhaweynaa Wajaale haddii aan kaaga warbixino wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waxay ku taallaa meel xad ah saadaradeed waa meel ay fududahay inay ka soo galaan cudurrada loo yaqaano in ka gudba xuduudaha ee xoolaheena inta badan ganacsiga waxyeela waxaanu soo aragnay iminkooda indhiina ku arkayseen kawaanku wuxuu ku yaalaa magaalada dhexdeeda kawaanadana sida marka shuruucda caafimaadka leeyahay waa inuu ka fogaado in magaalada waa meel aan dabayshu ku soo qaadeen urta magaalada isla markaa wuxuu ku dhex yaalaa meesha toga biyuhu waxa laga yaabaa inay ka cabayaan dad kale oo joogay xagga hoose inuu biyo yahay togaas saadaradeed caafimaad darro ayaa ka iman karta wixii ay wasaaraddu ku qaban karto waa ka qaban doontaa sayya wasaaradda xanaanada xoolaha maadaama aad wasiirka xanaanada xoolaha tahay marka labada qodob ee ugu muhiimsan ee nu doonayno maanta inaan halkan aan isdul taagno waa kawaanka iyo sayladda xoolaha sayladani waa saylad weyn dhul ballaaranna way ku fadhidaa dhulkan ay ku fadhidaana waa hanti dawladeed oo dawladda hoose mas'uul uga tahay qaranka sidaa darteed waagi bariyaba ood baa ku socota damac baa ku socda dad baa oodanayo oo degan oo qayb bay magaba naga haysta marka waxa iyadana laga maarmaana inaynu u helo qaranku inuu u helo dayr lagu xidho dayrkaas oo laba qaybood loo kala qaybin doono qaybta xoolaha ishinka ah ee dibid iyo geela iyo ariga insha Allah loo kala jari doono qodobka saddexaad ee noo soo raaca wuxuu noqon doonaa hadday suuragal noqoto kulley wasaaradda waxaan garanaynaa waxa wada shaqayn dhow la leh oo deedna kulley aan ku timaada waa kulley arrinka meelo gacan ma garanaysa aad u marto waad heli doontaa baan jecelahay laboratoryna waa laga maarmaan xagga xoolaha ama beer ha noqoto ama caafimaadka xoolaha noqoto dhiigga lagu eega noqotay inuu maanta kormeer noogu yimaado wasiirku isagoo indhaynaya muxuu ahaayay halkii sayladii xoolaha iyo kawaankii oo soo marinay waxa weey isagoo muxuu ahaayay u socday banka iyo beeraha isagoo u socday ayaanu annaguna muxuu ahaayay aan soo tusnay kawaankii iyo sayladii xoolaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka muxuu ahaa kormeerka ballaaran oo wasaaraddu maanta ayna u kala harin oo halkan yimid aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiir halka aynu joognaa wasiir waxa weeyay waa sayladii xoolaha waxa aqaleed arkaysa waxay ahaan jireen muxuu ahaayeen sayladii xoolaha inta waxa weey maamuladii kala dambeeyay dagaal bay kula jireen dagaalka ugu badan baa anagana muxuu ahaayay halka aan dadka kula jirnaa dadkii dhulka waxba u hoos looray wasaaradda xanaanada xooluhu waxa ay maanta Wajaale u timid safar ay ugu kuurgalayso korna ay ugu qaasatayeenta adeega wasaaraddu ay magaalada Togwajaale ka hayso xanaanada xooluhu adeega ay degmada Togwajaale ka fuliso kor sidii loogu qaadi lahaa wasiirku wuxuu soo indheeyay oo indhiisa ku soo arkay kawaankii xoolaha waxaan isla qaadanay inay jirto goob cusub oo kawaankii magaalada Togwajaale xoolaha loo dhagax dhigay mashruucaana wasiirku nala qaatay sidii wax uga qaban lahaa uguna hawlgeli lahaa isaga iyo wasaaraddiisa muhiimadda ay leedahay magaalada tani waa la garanayaa marka ugu hor xawiyaan waa meelaha ay isku weydaartaan ganacsiga waxaan ku raahdaay Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxay meel walba waxba ka taga xoolaha inoo ka yimaada inagoo ku soo gudba xoolahaasuna waa xoolaha lafdhabarta u ah wixii aynu dibadda u dhoofino dakhli fiican inuu ka soo galo waxay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga muhiim u ah goobaha noocaas oo kale ah in mudnaanta la siiyo wixii kaabayaal maxaan ku raahdaa dhaqaalaha ee ay u baahan yihiin ganacsigaas xooluhuna in wixii la qaban karayo laga qabto waan qirayaa maanta in kawaanka xoolaha lagu qalaa
inuu mid aad iyo aad uu xanuun badan inuu yahay foorxumo badanna leh dhibaatooyin badan oo caafimaad darra ay ka mid tahayna ku leh meesha uu ku yaalla iyo dadka ku xeeran aad iyo aad bayn waxaan ku dhahdaa ayaan uga xunnahay in meel caynkaasoo kale ahay sidaa magaalada dhexdeedii ay ugu oolaato ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa in aanu sida ugu dhaqsaha badan leh loo helo meesha u calaamadaysaan ee ka durugsan magaalada in loo helo maxaan ku dhahdaa dhismihii kawaan ee laga samayn lahaa khadar cabdilaahi telefishinka caalamiga ee Som News TV magaala ganacsiyeedka degmadaasi Togwa Jaale.